kulan wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa xulashada wararku aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. waa 22 bisha Oktoobar sanada 2022 qodobada iminkadana aad daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada Ahlus Sunna oo madaafiic culus ku garaacay ciidamada Galmudug ee weerarka ku ah magaalada Gurceel. dhowr caqabadood oo ka hor imaaday in weerar lagu qaado magaalada Gurceel. sidoo kale waxaad daawan doontaan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka falceliyay heshiiskii ay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. waxaad kaloo muuqaalkan ku daawan doontaan lafta gareen oo ka hadlay heshiiskii uu dhex dhigay Farmaajo iyo Roble. qodobadan iyo kuwa kale faahfaahsan muuqaalkan kaga bogan doontaan. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horay noola joogtayna sii share garee muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro igu bogtaan. waxaad ku mahadsan tahay daawashadaada wacanaynu ku bilaawno. ciidamada Ahlus Sunna ee gacanta ku haya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta madaafiic ku garaacay fariisimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ka sameysteen meel u dhow magaaladaas. dadka degan magaalada Gurceel ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa tiro madaafiic ah oo ay ciidamada Ahlus Sunna ku rideen fariisimaha ciidamada weerarka ku soo ah magaalada Gurceel, gaar ahaan kuwa dhanka jihada waqooyi kaga beegan, inkastoo aan weli la ogaan haddii ay khasaare ka dhasheen madaafiicdaasi. madaafiicda ay ciidamada Ahlus Sunna rideen ayaa ku soo aadaysa xilli ay fashilmeen dhammaan dadaaladii lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka ku soo socda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay haystaan Ahlus Sunna. labada dhinac weli kama aysan hadlin tallaabada ay qaaday Ahlus Sunna, waxaana weli socda barakaca magaalada Gurceel maadaama ay shacabka cabsi ka qabaan in dushooda lagu dagaalamo isla markaana ay waxyeelo ka soo gaarto. sidoo kalena waxaa xirmay inta badan ganacsiga magaalada. ciidamada dawladda ayaa fariisimo ka sameystay ilaa 3 aag oo u dhow magaalada Gurceel, halka ciidamada Ahlus Sunna ay dhufaysyo adag ka sameysteen banaanka iyo gudaha magaalada. Sheekh Shaakir oo saxaafadda kula hadlay magaalada Gurceel ayaa ciidamada dawladda ugu digay inay ka qayb galaan dagaalka lagu hayo Ahlus Sunna, taas bedelkeedana ay xoogooda isugu geeyaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. dhanka kale, dhowr caqabadood ayaa weli hortaagan in weerar lagu qaado magaalada Gurceel, iyadoo madaxtooyada Galmudug ay toddobaadkii hore amar ku bixisay in la weeraro xoogagga Ahlus Sunna ee la wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ayaynan haddana ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug gaarin magaaladaasi. kumaandooska gorgor guutada 15aad ee qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo nabad sugidda Galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay 2 jiho ka kulaalay magaalada Gurceel, kuwa oo aad moodo inay fooda galin la yihiin magaaladaasi. ciidamada kuwii dhinaca waqooyi kaga sii qaayay Gurceel ayaa ku sugan deegaanka Godwiil oo qiyaastii 15 kilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaaladaasi Gurceel. maamulka Galmudug iyo taliska ciidanka xoogga dalka ayaan ka hadlin waxa ciidamada ka hortaagan inay gaaraan xaruntii hore ee Ahlus Sunnada gobolada dhexe. hase yeeshee xoggan helnay ayaa sheegaysa in howlgalka lagu weerarayo Gurceel ay ka hor yimaadeen 2 caqabad oo dartood weerar loo qaadi layahay. caqabada koowaad ayaa ah in ciidamada dawladda ay ku kala qaybsameen weerarka magaalada Gurceel, iyadoona guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad ay ku jiraan xoogagii Ahlus Sunna ee ay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre qaramaysay bishii July ee sanadkii 2019. caqabada labaad ayaa ah in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka hor yimid in ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay weeraraan Gurceel, waana sababtaas ayaa la leeyahay midda ciidamada ka hortaagan inay gudaha u galaan magaaladaasi. Roble, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa lagu waramay inuu doonayo in xal nabadeed laga gaaro xiisada u dhaxaysa Galmudug iyo Ahlus Sunna, halkaas oo ah midka ay sidoo kale ku baaqayaan odayaasha beesha degta Gurceel iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb. xiisada ka jirta gobolka ayaa dadkii magaalada deganaa ku khasabtay inay guryahooda isaga barakacaan, kuwa oo xaaladaha adag ku wajahaya duleedyadeeda, iyadoona ay isa soo tarayaan baaqyada loo jeedinayo labada dhinac si looga baaqsado dagaal uu dhiig ku daato. siyaasiyiin iyo xildhibaano ayaa ka falceliyay heshiiskii ay gaareen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo. siyaasiyiin dhowr ah ayaa ka hadlay heshiiska ay Villa Soomaaliya ku gaareen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble,
ee lagu xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay labada mas'uul ee ugu sareysa dowladda Soomaaliya. Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muuqda in uu tanaasulay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble isagoo ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay'adda NISA ee uu magacaabay oo ahayd xudunta khilaafka labada mas'uul. Inta badan siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaan weli ka hadlan aragtidooda ku aadan heshiiska, hase yeeshee waxaa ka hadlay dhowr xildhibaan iyo murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed. Mas'uuliyiinta ka hadlay heshiiska ayaa yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi meel wanaagsan ayaa la dhigay heshiiska, waana mudan yahay in la bogaadiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen waa ku mahadsan yahay inuu ku guuleystay dhamaynta kala aragti duwanaantii madaxda qaranka ka dhex jirtay. Xildhibaan Maxamed Abtidoon waxaan bogaadinayaa heshiiska madaxda qaranka ay ka gaareen khilaafkii ragaaday howlihii qaranka. Waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen guusha uu ka gaaray heshiisiinta madaxda qaranka. Waxaan tallaabadan ka baranaynaa in mas'uulkii daacad iyo dhexdhexaad ka ah xal u helidda khilaafka jira inuu Allah ku guuleynayo. Qoorqoor uu ku fashilmay dhexdhexaadinta madaxda, fashilkiisana waxaa kalifay inuusan daacad ka ahayn xalinta khilaafka iyo inuu dhinacyada ishayana mid ka mid ah uu la jiray. Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay madaxda dowladda ka gaareen khilaafka siyaasadeed ee intii muddo ahba dhexdooda ka jiray. Waxaan u arkaa in isfahamkaas iyo heshiiskaasi uu qayb weyn ka qaadan doono daadejinta doorashooyinka qaranka si dalka uu uga baxo firaaqa dastuuriga ah ee uu ku jiray. Madaxweyne Laftagareen waan ku ammaanayaa waana ku bogaadinayaa dowrka odaytinimo ee uu qaatay iyo muddada gaaban ee uu guusha uga gaaray soo abyidda khilaafaadka hareeyay nidaamkii dowladnimo ee dalka. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha waqtiga ka dhacay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Laftagareen hogaamiyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in si buuxda loo soo afjaray khilaafkii muddada ka dhaxeeyay labada mas'uul ee ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble kaasoo ka dhashay kiiska Ikraan Taliil Faarax. Laftagareen oo garwadeen ka ahaa wadahadalada labada mas'uul ayaa sheegay in si kalsooni leh oo wanaagu ku jiro lagu dhameeyay khilaafka kadib dadaal dheer iyo isku dayo badan oo ay sameeyeen. Sidoo kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u mahadceliyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo uu sheegay inay tanaasul muujiyeen. Waxaana sheegay in dadka Soomaaliyeed ay walwal ka qabeen khilaafka madaxda Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dhammaan madaxda dalka ay ka wada shaqeyn doonaan ayna meesha ka baxday kala aragti duwanaantii jirtay haatanna la gudagalayo howlaha doorashooyinka Soomaaliya. Haddii aynu eegnana qodobada labada mas'uul ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo sidoo kale in Generaal Bashiir Goobe oo uu Rooble hore ugu magacaabay taliyaha NISA loo magacaabo wasiiru dowle. Sidoo kale, madaxda ayaa isku raacay in kiiska Ikraan Taliil Faarax loo daayo hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka, waxaana la faray hay-adaha amniga inay ku gacan siiyaan. Hagaag daawadayaal, halkan ayaan kusoo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen janalka xulashada wararka. daawashadiina wacan iyo la socodkiina codoon daawadayaal waad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo.